الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعن داوديال إذا الكلمة ميل والبا جوجتان سوال باينو مغليسان waxaad ku soo dhawaataa muuqaal aan kaga hadli doono kulan ciyaareedkii galabta dhexmaray kooxaha Horseed iyo naadiga Hagan kulan ka tirsan horyaalka Soomaaliya Premier League ciyaartan waxay mid aad u xiiso badan waana kulanka ciidanka maadaama Horseed ay militariga hoos tagto halka Hagan ay booliska ay tahay kulan ciyaareedka ayaa gabi ahaanba ku soo dhamaaday hal gool yabar ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta Horseed waxaana gool ku dhaliyay ciyaaryahan Hanad oo ah ciyaaryahan da'yar ah kaasoo bandhig cajiib ah sanadkan ku jira sila mid ah qaybtii koowaad waxa lagu kalmar barbadhac every inkastoo labada kooxood fursado badan iska cuneen balse ma aysan u suurtagelin in ay gool iska dhaliyaan ugu dambeyn naadiga Horseed ayaana markaan heshay goolkii guusha waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Hanad taasoo ka dhigan inay imika leedahay 18 dhibcood 15 dhibcood hore u leeyahay 3 dhibcood ay galabtay ka heshay kooxda Hagan ka dhigan 18 dhibcood ay leedahay waxayna soo galaysaa kaalmaha ugu horeeya horyaalka Soomaaliya Premier League ayayna soo tiigsanaysaa kooxda uu hogaamiyo Cabdi John Horseed waxay ku taamaysaa sanadkan inay ku guuleysto horyaalka Soomaaliya Premier League iyadoo muddo dheer u dhameysay inay koobkan hanato halka Haganna ay rabto sanadka inay soo celiso rajada ay ku leedahay horyaalka Soomaaliya Premier League ugu dambeyn ciyaarta waxay ku soo dhamaatay hal gool yabar Horseed ayayna guush ku raacday aragtida hoos inoo reeb adigoo maasamaal